السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين داوديال meel kastoo caalamka joogtaan ku soo dhawaada ogeysiis yar ee ku socda Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika gaar ahaan Soomaalida aan sharciyada haysan in muddo ku nool waddanka iyo waliba kuwa ku cusub haddaba waaxda sharci bixinta ee waddanka Koonfur Afrika ee qaabilsan qaxootiga ee loo yaqaan Refugee Home Affairs xafiisyadeeda ku yaal waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa ay shaacisay in laga bilaabo bisha soo socota ee May 3 la furi doono diiwaangelinta dadka cusub ee doonaya in ay ka helaan sharciyada magangalyo waddanka Koonfur Afrika. haddaba qoraal ka soo baxay Home Affairs ayaa waxa uu qornay sidaan: dadka doonaya inay codsiyo magangalyo ka codsadaan Koonfur Afrika waxaa lagu boorinayaa inay waaxda kala xiriiraan ciwaanka emailka kan hoos ku qoran ee ah newasylum2022@dha.gov.za si ay ugu soo diraan codsiyadooda magangalyo haddaba emailka waxaa la rabaa inaad ku xusto magacyada oo dhan sida magaca hooyada, taariikhda dhalashada, magacaada oo saddexan, jinsiyadaha, dalka dhalashada ee ku tiirsanaanta ah, haddii ay jirto taariikhda imaatinka Koonfur Afrika oo xasuusto xuduudda ama dekedda aad ka soo gashay Koonfur Afrika, iyo ciwaanadaada emailka, taleefankaada gacanta iyo adreeska aad degan tahay. intaasoo dhan ayaa la rabaa inaad ku sheegto. waxaa kaloo la rabaa inaad ku sheegto luqadda aad doorbidayso in lagu soo jawaabo. haddaba waxaa la yidhi dadka codsanaya codsigan waa inay ku jiraan gudaha waddanka Koonfur Afrika. sidoo kale waxa ay sheegeen in codsigu ay ku soo lifaaqaan haddii ay helayaan dhammaan dukumeentiyo wax ay haystaan sida baasaboorada, warqad dhalasho, wax kasta oo magacooda ku xusan yahay, taasoo muujinaysa muwaadinka waddanka uu ka soo jeedo, dhalashadiisa iyo magaciisa oo saddexan. haddaba ogeysiiskan wuxuu quseeyaa oo kaliya Soomaalida ku nool Koonfur Afrika, gaar ahaan Soomaalida aan sharciyada haysan magangalyo dabadeed sii sheegareeya muuqaalkan si uu u gaaro dad badan oo arrintan in muddo sugayay. waan hubaa inay jiraan Soomaali aad u fara badan oo doonaya sharcigaas asylum seeker waa mahadsantihiin.